بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay tahay kowdii bishii labaad 2025 waxaa ka dhacay hoolka magaalada Baydhabo ee madaxtooyada oo shir ku saabsan amniga oo uu shir gudoominayay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed mudane Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagareen shirkaas oo dhammaan la isugu yeeray laamaha ammaanka ee ka shaqeeya Koonfur Galbeed shirkaas runtii shir waxa ahaa miro dhal ah oo aad muhiim u ah laguna kala qaatay awaamir cadcad iyo shaqooyin runtii la faray saraakiisha ammaanka guud ahaan waxaa kow ka ahaa la dagaalanka khawaarijta argagixisada runtii in la dardar geliyo lagana sifeeyo guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed si ay u helaan bulshada Koonfur Galbeed nabadgeliyo iyo barwaaqo sidoo kale waxaa shirkan lagu lafaguray runtii laguna ammaanay saraakiisha iyo laamaha amniga shaqooyinka adaga ay ka hayaan guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo sidoo kale shirkan waxaa la iskula qaatay laguna faray saraakiisha aaladan la yiraahdo 1xbet oo runtii dib badan ku haysa askarta iyo guud ahaan bulshada reer Koonfur Galbeedba in lagana wacyi geliyo saraakiishuna ay ka soo saaraan awaamir cadcad oo lagu xisaabtami doono askarigii lagu arko asagoo shaqo ku jira dheelayana 1xbetkaas aad iyo aad u mahadsantihiin runtii shirkaas si qurux badan oo wanaagsan noogu soo dhamaaday wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu